صالح وعدي يجينا عدي الموقف كذا كما كانت تجو لكن واحد إلا وذي إن عاد كنتم تهاي بشهر رمضان وربا برتمه هذه أي نكتشر أو عاوة وحال شنية طبعا تهيبان أمرينيا إلهي وحي ورا عمرين سميننا هينجا أقبله واحد ذنب إن شاء الله هو نسمين دوننا الله هينجا أقبله ومد المسلمين تاع دمان إن شاء الله إلهي أقبل أعماشه ونكسن كوي إلهي يقدم يدافنا ربي هكذا قارهان ومد الصوماليات لا بدن باسكتشرة وعبر رمضان خير كذا وضطا إلهي وحكر جينيا وحي دبا الصومالي كدحجرة إلهي إنه سوق بجبيه أو كده وكوي وقدم بيسي أو دبا الصومالي كدحدعه إلهي ساسان كبرية ربي أنت أكذب وحرب إن كهذا هذا المانتا السوشيال ميديا ورهيجي أو كسوياري رئيس الوزراء كحجين كدولة الفدرال كالصومالية مدن صالح هذا الكاميرا كدور قضب بان اسكتو تاجي دونا أو كوبان أنا يقول كفجانين لكن واحد ربع إن كهر مريو بل واحد كتشرة أما يشوي كتاجن قبل كسول جارهان مجرد الأسعانات مجرد ما دخل قبل كاس أن أرنتاس واحد في عن هرت واحد سيد أوي هاي إن لو فهمه هل كا واحد يلا لبن مبدأ waxa lagu dirirayaana waa labada mabda Soomaali oo dhan baa qabta cidii iska saaraysa iyada sheegi doonto oran doonto anagu midnimo ma rabno ma qabno mabda Soomaali oo dhan waxay qabtaa midnimo waa mabdaas mabda labaad oo lagu dagaalamaya waxa weeye waa gooni goosi oo ay rabto jamhuuriyadda ismagacawday ee Soomaaliland marka waxa isweydiin leh Soomaali midnimadu xagee bay ka joogtaa xagee inaga joogtaa hadana Soomaalinahay midnimo waa wixii ugu qaalisanaa oo aynu haysanay Soomaali hadana nahay inaynu hoos wax u fiirino oo meel aad u liita oo hooseeya aynu wax ka eegno oo qabiil iyo waxa la midka ah waxa igala qurux badan inaynu meel sare ka laangoosano ama aynu wax ka fiirino maxay tahay war midnimada waad ogtiin gobolada Sool iyo Sanaag waa bridge-kii isku xirayay Soomaali arintaas Soomaali badan ma fahamsana xataa wax laga yaabo madaxda qaarkeed aanay fahamsanayn waa bridge-ka isu haya Soomaali kala go'eeda labada gobol okay dadka ka dagaalamaya iyo hawsha ka jirta iyo dadka ku diriraya mabda'a midnimada ummadda Soomaaliyeed shaqada ay hayaan miyaanay ahayn shaqadii Soomaali oo dhammi lahayd waa su'aal miyaanay ahayn shaqadii dawladda Soomaaliyeed loo idmaday oo dawladda Soomaaliyeed mas'uuliyadda ugu weyn oo ay leedahay waxa fiican in waxa si fiican loo fahmo mar haday sidaa tahay oo labada mabda is hayaan aniga waxa ila qurux badan inaynu mabda'a midnimada waan qabaa Soomaali oo dhan midnimada ay qabtaa cidii iyadu iska saaraysa oo hoos wax u eegaysa oo qabiil iyo sheeka aad u lidato raqiisa iyadu gadaysa iyaday u taal laakiin Soomaali oo dhan waxaan aaminsanahay wixii doonaysa waa midnimo qof kasto maanta Soomaali loo weydiiyo midnimo iyo kala go' ka rabtaa midnimo u oranaya marka Soomaaliyay waa inaan fahamnaa halka waxa ka jira inay tahay midnimadii Soomaaliyeed oo lagu dirirayo ama sharaftii Soomaaliyeed oo lagu dirirayo waa in sida loo fahmaa horta mabda'a inta waan ka hormarinaya okay marday saatahay waxa la yaab ah oo ajiib ah dawladdii Soomaaliyeed ee u xil saarnayd ama ummaddu ay u dooratay midnimada ummadda Soomaaliyeed in ay iyadu maanta ay istaagto wadatuhun istaagto waxaan saa u leeyahay ma moogi dawladdu inay mowqifkeedii cadaysay
ولبا مدن مدحوين حسن شيخ موقف كسي عديي oo markuu Mareykan joogay cadeeyay oo Soomaaliya markuu joogay cadeeyay isagoo aan wax gabasho lahayn waa taas ma moogi waxaan kala moogay dawladdu xukuumaddu intay fadhiisatay inay iyaduna ay mowqifkeeda ku aadan ay ka hadashay wasaaradda arrimaha gudaha mataleysa go'aankoodii ku hadashay laakiin biyaan dadku ka shakin karin ama miyaanay wadatuhun ahayn in mas'uulkii labaad ee xukuumaddu uu yiraahdo dadkii midnimada ku dirirayay oo ku dagaalamayay oo midnimada Soomaaliyeed ilaalinayay uu duro ama wax ka sheego ama uu yiraahdo ama uu nasaho oo bariyeero maamulka goosadka ee Soomaaliland miyaanay wadatuhu noqonayn miyaanay u baahnayn arintaasi dawladdu inay dib ugu noqoto hadii ay dawladdu mas'uuliyadeeda dareensan tahay shayga koowaad ee dadkan iyo dalkan ay u ilaalinaysaa marka diinta laga yimaado inay midnimada tahay ummadda Soomaaliyeed waayo mas'uulku wuxuu ka hadlay wuxuu sheegay dagaalka laascaanood ka dhacay inay failure-kooda ay yihiin ama dadka sababta ah inay yihiin isimada dhaqanka waanu arkay inuu ku gafay okay taas markaan isku taago marka wuxuu yiri waa failure siyaasadeed ma waxa failure Soomaaliya idinkaan idin weydiiyaa laascaanood sidii wax uga dhaceen waad ogeydeen sidii dagaalkaasi ku bilaabmay iyo qalaasahaasi waad ogeydeen ummad hal doorkeedii habeen walba la dilayo ayaa shacabkeedii kacay dumarkii iyo caruurtii oo mudaharaadaya ayaa suu iyo dhashiika madaxa laga dhacay ma mas'uuliyiinta Soomaaliland ee waxa sameeynayay baa failure mise waxa failure isimada dhaqanka ee ilaahay hadda midnimada ummadda Soomaaliyeed u taagan oo markastoo ay hadlaan leh annagu Soomaali ka go'aymayno waxaanu ilaalinaynaa waa midnimada ummadda Soomaaliyeed ma waxa failure siyaasiyiinta ama mas'uuliyiinta Soomaaliland ee ilaa iyo maanta oo ay laba bilood ku dhowdhowdahay la dhacay madaafiicda BM-ka iyo hoobiyaha iyo waxa la midka ku garaacaya guryaha maatadu ay degan tahay oo caruurta iyo maatada ku leeynayo ku diminaya mise waxa failure dhaqan kale war midnimaanu doonaynaa war hadaad go'aysaan idin la go'aymayno ma waxa failure ninka shalay wuxuu dawladdii Soomaaliyeed ku duminayay oo kula dirirayay oo ahayd oo ka cabanayay usagu maanta sameynaya miya failure mise waxa failure ismada war midnimaanu doonaynaa midnimo Soomaaliyeed war waxaana la ku dilayaa waa guryaha iyagiina war waxaana la ku dilayaa waa dadkoodii ismadu xaq bay u leeyihiin inay u damqadaan dadkoodii oo dhashiikay suu madaxa laga dhacay bay arkeen inay u damqadaan oo yiraahdaan madaxa kor u qaada oo midnimada Soomaaliyeed difaaca anu inay ku saxsan yihiin ma qaba failure ma cidda failure kaana way muuqataa waxa markay isweydiinta waxay tahay dawladdu marka mas'uuliyiinteedii sidaa u hadasho miyaan looga shakin karin midnimadii laftigeedu inay iyadu wax yeelayso miyaan looga shakin karin wadatuhun oo midnimadii ay dhaawac ku gaarsiinayso waxaan qabaanu dawladana ka codsanaynaa mas'uulka hal mas'uul saaran maaha waa mas'uulkii labaad ee xukuumadda hadday afkaarta la qabto oo fikirka dawladdu uu ka yahayna de dawladdu waa hadday ku aamustaa oo ay u yiri saalax ra'iisul ku-xigeenku haddii aan mowqifkeedu ka ahayna oo mowqifkeedu uu yahay waxay u dhisan tahay ay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa inay dib u cadaysaa mowqifkooda tuhunka galay waa inay dib u cadaysaa saalaxna waxaan leeyahay saalaxow waxaan maqli jiray fiqi tolkii kama janno tago fiqi tolkii kama janno tago laakiin waxaad ilowday inaad konton tahay oo kontonna xagga tahay waxaad ilowday
mas-uuliyadda aad ku fadhidid oo ah tii ummadda Soomaaliyeed ee waxa koowaad midnimada ahaa iyo calanka aad hoos fadhiyid oo kii Soomaaliyeed buluug ahaa oo ka dadkan lagu laynaya maxaad u qaadateen lagu laynaya inta abaad ilowday wax ka xoog weyn baa ku jiitay waxaan leeyahay oo inta ku daraya kaftana dawladdu mowqifkeeda ha cadayso haddii arrintu ay noqotay qabyaalad iyo irmaan waraabsina dee anaga kuwa noo jooga ha cadayeen mowqifkooda sidaas salax u cadeeyay iyana ha cadayeen mowqifkooda taa intaasaan kaga tegaya waxaan kaloo ka hadlayaa gefka loo geystay dhaqanka madooyinkii dambe oo laascaanood dhibaatadu ka socotayba waxay ahayd wax caado ah in dhaqanka goboladaas la aflagaadeeyo mar la yiraahdo waa argagixiso mar la yiraahdo waa jabhad mar la yiraahdo waa dagaal oogayaal marba wax lagu sheego cidda wax ka sheegaysana waxa ahayd jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasiyiinteeda iyo mas'uuliyiinteeda iyo kullu iyo shacabkeedaba qayb kamid ah wixii alla u naxariistay mooyaan tanna waxaan